saddex xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Balugwale ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmi iskaga casileen xisbiga mucaaradka ee wadani iyaga oo ku biiray xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. xildhibaanadani sidaasi waxa ay ku sheegeen shir jaraa'id oo maanta ku qabteen magaalada Balugwale ee xarunta gobolka Hawd. waxayna kala haayeen saddexdan xildhibaan ee maanta iska casilay xisbiga wadani: xildhibaan Cumar Cabdishafad, xildhibaan Food Iimaan Maxamed iyo xildhibaan Aadan Cali Xasan. waxayna xildhibaanadani dhawaaq dheer ku sheegeen inay wixii maanta ka dambeeya ay hiil iyo hooba isla garab taagi doonaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. anigoo xildhibaan Food Iimaan Maxamed xildhibaanada gobolka Hawd waxaan maanta halkan ka shaacinaa ka cadeynaynaa inaanu ka baxnay xisbigii wadani kuna biiray xisbiga kulmiye kaas oo aynu u aragnay ina aan sahanka dadka bulshada aan sahanka u nahay inay ceelalyadeedii halkaa tahay aan laguna xoog muruq iyo maal baan ku garab taaganahay Muuse Biixi Cabdi. waxaan halkan aanu ka cadeynaynaa inaan ka guuray xisbigii wadani aanu ka tirsanayn una wareegnay xisbiga kulmiye uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi, taasoo aanu markaanu wax badan aanu eegnay hay'ado badan aanu eegnay danaha iyagu ay ku jiraan. laga bilaabo maanta waxa aanu garab taaganahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan maanta halkan ka shaacinaynaa annagoo ah xildhibaanadii gobolka Hawd inaanu si rasmi ah ugu biiray xisbiga kulmiye, taasoo aan muruqayaga iyo maalkayaga iyo maskaxdeedaba kaga qayb qaadan doono. maxamed Jiciiro Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Balugwale.